These 6 steps waxay kugu caawinayaan in si yaroo fudud aad go'aan u qaadato si mushkilad ama caqabad ku haysta aad xal ugu hesho. Mar kasta oo ay tahay inaad go'aan muhiim ah qaadato si aad mushkilad ama caqabad jirta u xalliso ama arrin murugsan u furfurto, ka war hay 6 qodob oo isticmaal. 6 qodob meel ku qoro. Qodobka koobaad waxa weeyaan horta waxaad ogaataa go'aankaad u baahan tahay inaad qaadato. Maxaan u baahanahay inaan qaato? Go'aan nooceeyaan u baahanahay? waxaad isweydiinaysaa maxaan go'aankan ugu baahanahay? Inaan go'aan qaato maxay muhiim iigu tahay? waxaad isweydiinaysaa maxaan rajaynayaa inaan gaadho haddaan go'aanka qaato? Marka halka waxa ka soo baxaysa inaad garato go'aankaad rabto inaad qaadato. marar badan dadku ma oga go'aankay rabaan inay qaataan. taasina waxay sababtaa in qofkii uu jahwareer iyo maaragtay iska daba wareeg badan galo, waqti badan ina ka lumo. marka qodobka koobaad waxa weeyaan oo garawso go'aankaad rabto inaad qaadato. marka wax ku ogaan kartaa go'aan nooceeya rabaa inaan qaato, waxaad eegi kartaa go'aan halkeen doonaya inaan gaadho, because markaad meesha ogaato go'aankaad qaadanaysaad garanaysaa. qodobka labaad waxa weeyaan waxaad liis garaysataa optionska ama waxyaabahaad kala dooran kartee suuragalka oo dhan. liis garee wax kasta oo suuragal, optionska iyo khiyaaraadka kuu furan oo dhan liis garee. sidan aan yeeli karaa, sidan aan yeeli karaa, sidan kale aan yeeli karaa, tan aan yeeli karaa, iyagaan hadhow kala dooranaa qodob soo socda. laakiin liis garee wax kaste oo option kuu noqon kara, option kaste oo kuu furan liis garee. marka waxaad soo urursataa informationka iyo akhbaarta kaa caawin karta inaad qaadato go'aan fiican, oo wax soo yara baadh, oo maaragtay talana dadka weydiiso. optionska jira liis garee. go'aanka ugu fiican baa hadhow kuu soo bixi doona. marka hadda liis garee suurtagal ahaanshaha kastoo jirta iyo option kastoo kuu furan. number 3 waxaad qiimaysaa go'aankaas faa'iidada ku jirta iyo faa'iido darrada ku jirta qoro iyadana istaagtay. number 4 inaad choice-kii samay. kow waxaad garatay go'aankaad qaadanaysay. 2 option kastoo kuu furan baad liis garaysay. 3 waxaad qiimaysay optionska mid walba pros iyo conskiisa. 4 go'aankii qaado, choice-kii samee. optionskaa jira mid ka qaado. ka fikirto inuu go'aanka aad choose garaynaysaa ee dooranaysaa uu noqdo ka ugu faa'iidada badan leh inuu noqdo isku day. 5 go'aanka aad qaadatay ficilkiisii bilow. maadaama go'aanka qaadatay, go'aankaasi muxuu u baahan yahay si uu u dhaqan galo? ficilkii bilow. inta una ku joogsanay go'aan kastood qaadato waxaad isku daydaa inaad dib u qiimayso, maadaama go'aankii aad processkiisii martay. waxa ugu dambeeya processka go'aan qaadashada inaad qiimayso go'aankaasi inuu noqday go'aan midho dhala oo faa'iido ku lahaa iyo inaanu noqon mid aan midho dhala. taas waxay ku baraysaa marka hadhow inaad kala barato go'aan qaadashada kii ku wanaagsan iyo kii aan ku wanaagsanayn.